السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جانالك مركز السود واضح أدي أو ما تنتهين مقالكن waxaan rabaa inaan idin kula wadaago dawladda Iran oo si kulul uga soo jawaabtay hanjabaadii madaxweyne Trump uu u jeediyay dawladda Iran haddii aysan si buuxda u furin marinka Hormuz. Haddaba hanjabaadaasi maxay ahayd Iran maxay uga soo jawaabtay waan idin la wadaagaya. dawladda Israa'iil oo sheeganaysa dhaawaca 180 qof dhimashada ma aysan sheegin oo tobaneeye ayay sheegayaan laakiin gantaaladii Iran ay xalay ku weerartay magaalooyinka u dhow goobaha nuclearka ee Iran ee Dimona iyo Iraq qasaare xoogan ayaa dawladda Israa'iil ka soo gaarayna waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhaw madaxweyne Trump ayaa ku dhawaad 20 saacadood ka hor waxa uu ku soo qoray bartiisa Truth Social qoraal hanjabaad ah oo dawladda Iran uu ugu hanjabayo waxa uu leeyahay dawladda Iran haddii aysan si buuxda u furin marinka Hormuz waliba iyadoo Qatar aysan ku jirin maraakiibta maraysa waxa uu sheegay in ay ku burburin doonaan dhammaanba goobaha kala duwan ee korontada ee wadanka Iran waxaana uu sheegay in uu ugu hormarinayo marka midda ugu weyn kadibna kuwa kale uu burburinayo Trump waxaan ognahay hadda 2 maalin ka hor markii ay dawladda Israa'iil ay weerartay goobaha shidaalka waa kii yiri Israa'iil way carootay Netanyahu waan la hadlay isla markaana mar dambe ma weerari doono Netanyahuna uu sheegay inuu Trump la soo hadlay laakiin Iran ayada markastaba waxay tahay markii iyada meel lagu dhufto ayay ka jawaabaysaa haddii goob nuclear laga duqeeyo goob nuclear sida hadda xalay dhacdo aan idin sheegi doono goob koronto haddii laga duqeeyo goob koronto ayay duqeynaysaa marka iyadu markastaba meeshii laga taabto ayay taabanaysaa marka Trump hanjabaadaasi ayuu 20 saacadood ka hor soo qoray oo bartiisa Truth Social uu ku soo qoray leeyahay dawladda Iran haddii aysan si buuxda oo waliba Qatari aysan ku jirin marinka Hormuz 24 saac gudahood aysan ugu furin waxaan burburin doonaa goobahooda korontada midda ugu weyn ayaanan ka bilaabi doonaa haddaba arrintaasi Iran waa ay ka soo jawaabtay Iran goordhow ayay arrintaasi jawaab ka soo bixisay afayeen u hadlay dawladda Iran ayaa waxa uu sheegay dhowr qodob oo ay filin doonaan haddii dawladda Mareykanku ay arrintaasi ku kacdo waxa uu sheegay madaxweyne Trump xitaa madaxweynaha argagixisada ay ugu yeerayaan wuxuu yiri marka haddii dawladda Mareykanku ay arrintaasi ku kacdo waxaan marka hore baltilmaameedsan doonaa ayuu yiri dhammaanba goobaha korontada ee dawladda Israa'iil iyagu Israa'iil ay inta badan dhuunta qabanayaan markasta iyo wadamada bariga dhexe amaba khaliijka marka wuxuu yiri Iran goobahooda korontada waan burburin doonaa sidoo kale isgaarsiintooda waan burburin doonaa goobaha tiknoolajiyada oo casriga ahna waan burburin doonaa sidoo kale waxa uu sheegay in wadamada khaliijka oo iyaguna martigeliya ciidamada Mareykanka oo saldhigyada ay ku leeyihiin dhammaanba goobahooda korontadana waan burburinaynaa marka nimankii si cad ayay uga soo jawaabeen arrintaasi waxa sidoo kale uu intaasi ku daray afayeenku u hadlay dawladda Iran in ay sidoo kale burburin doonaan in shirkadaha Mareykanku saamiyada uu ku leeyahay oo wadamada khaliijka ku yaala marka waxay yiraahdeen Israa'iil oo kaliya ma bartilmaameedsan goobahooda korontada isgaarsiinta iyo sidoo kale goobahooda tiknoolajiyada casriga ah iyo waliba wadamada saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay oo wadamada khaliijka sida Kuwait, Bahrain, Sacuudiga, Imaaraadka ay ku jiraan iyo Qatar iyo maahan oo dhan goobahooda korontada oo kaliya bartilmaameedsan shirkadaha ku yaala wadamada bariga dhexe ee dadka Mareykanka ama shirkadaha Mareykanka saamiyada uu ku leeyahayna waan bartilmaameedsan doonaa waxay sidoo kale ku sii dareen xitaa danaha Mareykanka ee galbeedka qaaradda Asia xitaa waan bartilmaameedsanayna ay yiraahdeen marka afayeenku waxa intaasi ku sii daray wuxuu yiri inagu dagaalkan ma aanan bilaabin waxaana uu sheegay in ay ka jawaabi doonaan markasta oo dhibaato loo geysto goobahooda muhiimka u ah waxa uu xaqiijiyay in arrintan ay tahay in markii hore lagu soo gardarooday waxaana uu xaqiijiyay in dhammaanba goobahaasi uu sheegay ay burburin doonaan Mareykanka iyo xulufadiisana meelaha ay ku leeyihiin khaliijka ama bariga dhexe oo muhiimka ah ay gabi ahaanba ay baabi'in doonaan waxa uu sheegay dagaalkan mid aan anagu bilowna ma ahan isla markaana kuma degdegi doono yiri arrintan ilaa iyo anaga nala ku soo gardaroodo macnaha waxa uu leeyahay inagu ma bilaabayno laakiin Trump haddii hanjabaadiisa uu ka dhabeeyo inaguna teena waan ka dhabeynayna sidaasi ayuu leeyahay mana jirto leeyahay wax arrintaasi naga hor istaagaya Iran horay ayaa loo arkay gantaalada ay ridayso meeshii ay ugu tala gashay inay ku dhacayaan horay ayaa loo arkay arrintaasi tijaabo uma baahna
oo dhowr gantaal oo kala duwan waa kuwa saldhigyadii Mareykanku uu ku lahaa khaliijka gabi ahaanba burburiyay goobihii shidaalka ay sidoo kale khaliijka waa kuwii weeraray marka waxa ay leeyihiin anagu ma bilaabayno laakiin kama gambanayno haddii arrintaasina lagu soo gardaroodo oo goobaheena muhiimka sida korontada oo Trump uu ku hanjabayo uu bartilmaameedsado inaguna Mareykanka iyo xulufadiisa danaha ay ku leeyihiin khaliijka iyo waliba Israa'iilba waan burburinayna bal waa kan isagoo ayna hadlayay isla markaana luqadda Carabiga lagu turjumay hadalkiisa bal wax yar ila daawada afayeen ku hadlay dowladda Iran oo hanjabaadii madaxweyne Trump كجوابي كافة محطات الطاقة والبنى التحتية للطاقة والتكنولوجيا والاتصالات في الكيان الصهيوني سوف تستهدف بشكل كبير. كل الشركات المشابهة في هذه المنطقة التي لديها أسهم أمريكية فيها سوف يتم تدميرها بشكل كامل. رابعا محطات الكهرباء للدول التي تستضيف القواعد الأمريكية سوف تكون هدفا مشروعا بالنسبة لنا. كل شيء جاهز من أجل جهاد كبير بهدف القضاء على كافة المصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة غرب آسيا. نحن لم نبدأ بالحرب والآن أيضا لن نكون البادئين بهذا ولكن في حال قام العدو باستهداف محطات الطاقة لدينا فإننا سوف نقوم بأي شيء وأن المسار نحو تحقيق الأهداف التي تحدثنا عنها لن يتوقف ولا يوجد أي شيء يمنع استمرار عملياتنا بهدف تدمير المنشآت الطاقة والنفط والتكنولوجيا لأمريكا وحلفائها ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. dhinaca kale xalay Iran waxa ay burburisay laba magaalo oo ku yaala koonfurta wadankaasi Israa'iil waxayna u dhow yihiin sidoo kale goobaha nuclearka ee Israa'iil ay leedahay gaar ahaan magaalada Dimona waxa wasaaradda caafimaadka Israa'iil ay sheegaysaa in 180 qof ay ku dhaawacmeen gantaaladii balistiga ee Iran ay ku soo duurtay magaalooyinka Dimona iyo Iraq oo u dhow goobaha nuclearka ee Israa'iil ee koonfurta wadankaasi Israa'iil waxa wasaaradda caafimaadku ay leedahay in 116 qof oo kamid ah dadkaasi waxay ku dhaawacmeen magaalada Iraq halka 64 qofna ay Dimona ku dhaawacmeen qaarkoodna dhaawacoodu waliba waa halis ay leedahay wasaaradda caafimaadka Israa'iil hay'adda dhinaca nuclearka u qaabilsan xakameynta la yiraahdo IAEA loo soo gaabiyo waa International Atomic Agency waxay leedahay ma ogin wax khasaare ah ama dhibaato ah oo soo gaaray goobaha nuclearka baaritaanka loogu sameeyo ee magaalada Dimona ilaa iyo 13 kilomitir ama 8 mile meel u jirta magaalada Dimona ayayna goobahaasi ku yaaleen marka Iran arrinteedu waxa ahayd anagu waan ku dhufan karnaa goobta nuclearka waana idin tusayna marka meel aan u dheereyn ayaa gantaaladii lagu dhuftay macnaheedu waxay tahay ogaada inaan ognahay goobihiina nuclearka Israa'iil isla markaana xilligii aan rabno aan duqeyn karno haddii marka agtaada lagu dhufto macnaheedu waxa ay tahay doqonku waxa la yiri usha agtiisa ku dhufo haduu garan waayna marka labaad isaga ku dhufo Soomaa marka agtooda ayaa lagu dhuftay macnaheedu waxay tahay ogaada inaan aan burburin karno goobihiina nuclearka oo gantaaladaynu ay soo gaaraan sidoo kale waxa jirta maanta oo xad ahayd in gantaal kale oo ku dhacay talaabiib 7 qof ay ku dhaawacmeen marka dawladda Iran waxay tiri weerarada aan weerarnay magaalooyinkaasi Dimona iyo Iraq waxay jawaab u yihiin kadib markii la weeraray goobteena nuclearka ee Natanz arrintaasi jawaab ayaan ka celinaynay ayay leeyihiin sidoo kale ciidamada cirka ee Israa'iil waxay xaqiijiyeen ilaa iyo dagaalkan markii uu bilowday 28 bishii February oo hore in Israa'iil in Iran ay ku soo turtay Israa'iil 400 oo gantaal 400 oo gantaal ay nagu soo tuureen ay leeyihiin ilaa 28 February marka waxay leeyihiin 92% waynu qabanay marka meeqa baxsatay 8% baxsatay sida afkooda ay ka qiranayaan ciidamada cirka ee Israa'iil marka waxay leeyihiin 400 oo gantaal ayaa Iran ay nagu soo duurtay 92% gantaaladeena kala duwan ee difaaca ayaa qabtay laakiin sida muuqata 8 ayaa naga baxsatay ma dhahayaan laakiin xisaabta adigu isku dhufo 8daasi ayaa baxsatay marka Iran hanjabaadii Trump sidaas ay uga soo jawaabtay sidoo kalena waa tan burburka xoogan u geysatay goobihii nuclearka ee Israa'iil deegaanadii ka agdhow guryaha waa ay burbureen xitaa waxa lagu dhawaaqay mass casualty inay jirto macnaheedu waxay tahay markii dhibaato weyn ay dhacdo dhammaanba kooxaha gurmadka kala duwan ayaa la isugu wacaya xitaa dadka dhintay
kulley ma aysan sheegin tobanaan ayay ku sheegayaan laakiin meel sidan u burburtay oo guryahan aad arkaysaan dabaqyada burburay in dhimashada waa kulley Israa'iil way qarinaysaa oo inta badan dhimashadooda ma sheegaan laakiin meel dhaawac 180 ay sheegeen dhimashada jiri karta sidoo kalena waad garan kartaan marka waan arki doonaa Trump haddii hanjabaadiisa uu ka dhabeeyo iyo haddii kale marka ka waran wadan aad isdagaalaysan oo dagaal uu idin dhaxeeyo haddii aad u hanjabto kaba soo qaad qof ayaa isdagaalaysaan waa is hortaagan tihiin haddaad tiraahdo ka waran 2 maalin kadib ay noo tahay ku soo laabanaya marka Trump hadalkiisu hadda sidaas ayuu u egyahay markii wadamadii NATO ay diideen inay gacan ku siiyaan furitaanka marinka Hormuz isagoo hadda ciidamo kala duwan oo u diray ilaa 2500 ay ku sii socdaanba marinka Hormuz hadda wuu sii hanjabaya waxa uu leeyahay haddii 24 saac ay ku furi wayso Iran waliba iyadoo hanjabaadi aysan ku jirin waxaan burburin doonaa goobahooda nuclearka marka waxay u muuqataa hanjabaadaasi Trump haddii uu ka dhabeeyo in sidoo kalena Iran iyaduna ay cadaysay jawaabta ay ka bixinayso aad iyo aad u mahadsantiin